دكتور عثمان كسو دواو سومالي تي في وسو دواته waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo maanta bal cudurkan TB-da nooca uu yahay inaan asaga laftiisa fahanno Soomaalidu qaaxa ay u taqaanaa marka inaan bal fahanno inaan noo sharaxdo asaga bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh cudurkan TB-ga Soomaalida aad buu u taqaanaa Soomaalida cudurada ay taqaanana waxa lagu gartaa magacyo u leeyihiin oo Soomaali ah cudurkan qaaxada yiraaha ama feeraha yiraahan ama urug biira intaas oo dhan waa magacyada ay Soomaalida u yaqaanaan waa cudur facweyn waa cudur Soomaalida ay aad iyo aad u taqaana Soomaaliyana aad ugu badan marka inkastoo cudurka TB-ga adduunka oo dhan uu ku faafsan yahay aad iyo aadna maarta loo kala qaado haddana Soomaaliya si gaar ah ayuu aad iyo aad ugu badan yahay cudurka isaga ah marka noocyada uu kala leeyahay maxay tahay marka uu cudurkan uu yahay infection oo kaleeto marka uu u gudbo disease uu u gudbo cudurkii uu darnaado soo kala yahay soo ku bilowda cudurkan horta waxa keena bacteria baa keena bacteriagaas waa mid hawada lagu kala qaado jeermiga cudurkan keena wuxuu ku soo raacayaa hawada markuu qof qaba cudurkan isaga ah uu qayliyo ama hadlo ama uu qufaco ayuu hawada soo baxaya marka qofkii kale oo qofkaas u dhawaa ayuu jeermigii neefsanayaa markaas cudurkii ku dhacayaa marka cudurkan laba nooc oo kala baxaa mar waxa la yiraahaa markii lagu baaro cudurkii infection baa jirkaada ku jira bacteria cudurka ahaa jeermigan keenay ayaa jirkaada ku jira oo waxa tahay cudur side fiyo markaas waa marka intii gacantan laga diro ay gacanta ku bararto oo laba bari ka bacdi aad takhtar ku noqotid oo gacanta intii la cabiro ay bararto markaas macnaheedu waxa waaye jeermigii cudurkan TB-ga keenay jirkaadu ku jira adiga laakiin wali ma bogtid laakiin cudur side fiyo ayaa tahay haddii marka intii goor tahay aad cudurka isaga iska daaweynin waxa laga yaabaa intuu cudurkaas tarmo jeermigaas tarmo oo soo kaco inuu bato oo markaas uu cudurkii TB-ga ahaa uu kugu suubiyo cudurka gudihiisa markuu cudur noqdana dabcan calaamooyin iyo waxyaalo badan uu leeyahay inta laakiin aad tahay cudur sida fiyo oo aad dadka ma qaadsiin karaysid adiga cudurkan isaga ah adiga waad caafimaad qabtaa oo wax calaamooyinka cudurkan ku saabsanaa oo laga arkayo ma jiro laakiin jeermiga jirkaada ku jira awoodda jirkaada difaaca jirkaada ayaa iska celinaya meel ku haya marka waxa laga maarmaan ah muddadan iyada ah inaad cudurkii iska daaweysid daawuna leeyahay la qaato muddo ah daawadiisaas la qaadanayo muddadaas oo cudurka uu arrinka ka dhawaajisa waxa kamid ah calaamadaha kaleeto oo muujiyo cudurkan markuu qofka qabo calaamadahaas maxaa kamid ah markii cudurkan jirkaada ku jiray intii muddo ah oo aad iska daaweynin cudurkii jeermiga uu tarmayaa markaas waxaa noqonayaa cudurkii buu noqonayaa disease buu noqonayaa disease markuu cudurka noqdo calaamooyin buu la soo baxayaa calaamooyinka ugu waaweyn oo qofka qaaxada qaba lagu garto waxa weeye qufac muddo 3 sitimaan ka badan soconaya adoo miisaankaada uu dhaco qandho iyo dhaxan isla socoto oo ku qabanayso habeenkii sariirta markaad ku seexatid oo aad ku dhididaysid oo aad barkintaada aad arkaysid inaad dhidid badan xalay dhididay rabitaanka cunnada oo ka yaraada xabadka oo ku xanuuna intaas oo dhan way calaamooyinkiisa waliba qufaca marka dambe marka qufacda waxa qufac la soconaya dhiig ama carun dhiig wata ayaa la soconaya oo sanbabada ka imaanaya taas macnaheedu waxa waa cudurkii baa qabta qofka markuu wixii soo tufa dhiiga soo raacayo markuu qufaco dhiig baa soo raacayo marka TB-ga cudurka aad qabtid markaasna waa markii aad qofka ku daaranayso oo aad cudurka fidinaysid adiga cudurkan Soomaaliya uu ka jiray wax badan qabiira ka ah Soomaaliya arrimahan ka shaqeeyo dadka Soomaalida magacyo badan oo la bixin aad u yaqaaneen laakiin waa cudur ay inta badan ka xishoodaan inay xataa isku sheegaan ama ay acknowledge garayaan inay qabaan maxaa keena dhibaatadaas intaas la waa nasiib darrada meesha taala waxa way Soomaaliya inkastoo cudurkan si fiican u taqaano oo ay og tahay in la kala qaadane haddana waliba cudurkan kala qaadidiisa uu hawada ku soo marayo oo ah cudur
adiga aad raadsanaynin cudur adiga kusoo raadsanaya haddana soomaalida waxay ka qabtaa cuqdada cudurkan ka qabtaa way qarsataa way ka xishootaa qofka markuu cudurkan qabo ku yimaado ku dhihi maayo cudurka TB-gan qabaa haliga baara ama inaan qabaa u malaynaya haliga baare markaad su-aalaha weydiido waxyaalo aan jirin buu kaaga sheekeynayo ritiba waa ay haraantiye iyo qof baa feer ugu dhuftay iyo waxyaalahaas buu ka hadlayaa marna ma qiraayo inuu cudurkii qabo ama qof qabo uu cudurkan ka soo qaado uu ogyahay inuu qabo cudurkii laakiin arrintaas dhibaato ugu tahay in la daaweeyo qofkii sababta qofka haddii una hadlin waxaan qiyaasaya inaad tihiin qaar ka mid a dhaqaatiirta dhibaatada ugu badan wajaho si bukaankooda ay u daaweeyaan marka hadduusan qofkii hadlin oo uusan sheegin waxa uu qabo si ay adinka u daaweyn kartaa dhibaatada meesha keentayba inuu cudurkii ku bato Soomaaliya yaan Soomaaliya oranin xataa Minnesota inuu cudurkii Soomaalida aad ugu bato waxa keenaysa qofkii cudurka qabay oo aan daawo qaadanaynin oo cudurkii iska daaweynaynin dadkiina ku fidinaya kaasaaba keentay cudurka inuu sii fido oo Soomaaliyana maanta guri aan laga qabin ma jiro laakiin nasiib darrada waxa waaye Minnesotadan aan joogno dadka cudurkan qaba Soomaalida ugu badan markii dadka Afrika ka yimid oo dhan la isku daro inta cudurka qabta iyo Soomaalida kaligeed marka qabta Soomaalida kaligeed ayuu cudurku ku badan yahay oo aad uga badan waliba dadka kale baaritaan la suubiyay 2005 ilaa 2009 Minnesota waxaa laga helay 499 qof oo cudurkan TB-ga qabta cudurkii Soomaalida waxay ka noqotay 290 oo boqolkii 58% ah marka taas waxay ku tusaysaa inuu Soomaali cudurka aad iyo aad ugu badan yahay inay iska daaweynayaan oo qarsanayaan oo maartay la xishoonayaan marka taas nasiib darro waxay ku noqotay in Soomaalida cudurka ku sii fido isku sii daaritaan ay sii fidiyaan marka dhaqankii ka jiray gudaha Soomaaliya Mareykanka waa loola soo guuray waxba iskama bedelin dhaqankii ka jiray Soomaaliya nasiib darro Soomaaliya qof cudurka qabay oo xataa aan heli karin daawadii ayaa buuxay oo meelo badan bay daawadii jirin awood baan jirin lagu gaarsiiyay daawada laakiin nasiib darro waxa ah Minnesota oo daawo fiican oo cudurkan cirib tiraysa taalo oo waliba xataa qofka hadduu sakaar caafimaad qabin daawo lacag la'aan ah cudurka looga daaweynayo ayay si Soomaalida iska daaweynayeen oo noqdeen maanta dadka ugu badan oo TB qaba marka taas xoogaa yar nasiib darro waa dhaqan xumo u baahan Soomaalida inay iska baabi'iso oo cudurada laga xishoodo inuu galaba maaha maadaama uu hawada ku soo marayo adiga mas'uul ka mid waxa laga yaabaa iskool inaad ka soo qaaday waxa laga yaabaa bas inaad ka soo qaaday waxa laga yaabaa qof ku yimid inuu kugu daartay ama khayraha ka soo qaaday iyo meelaha lagu kulmo marka ma aha cudur inaad ka xishooto ama marka isku aragtay inaad iska daaweyso daawadii si degdeg u qaadato waxuna ka mid yahay TB-ga maanta cudurada sida fiican loo daaweeyo oo daawo aad iyo aad maartay waxtar leh loo hayo marka ma aha inay Soomaaliya cudurkii Minnesota ku qarsato oo Minnesota maartay ay ugu noqdaan dadka maartay ugu badan oo cudurka TB-ga qaba guud ahaan Mareykanka Soomaalida degan waa dad aad u yar oo mujtamac muhaajiriin oo 200,000 ku dhawaad leeyahay oo meelo badan ku kala faafsan laakiin Minnesota u badan yihiin guud ahaan Mareykanka TB-da si uga jirtaa horta TB-ga Mareykanka badana aad iyo aad bay iskaga ilaaliyeen iskaga baabi'iyeen laakiin hadda dib ugu soo noqotay aad bay maartay waxaana keenaya dadka qaxootiga wadanka la keenay baa keenaya in TB-ga hadda Mareykanka ku batay marka TB-ga aad bay u badan yahay Minnesota Mareykanka qaba hadda laakiin waa cudur ay aad iyo aad u daaweeyaan oo markuu infectionkii jiro oo TB-ga infection aad qabtana wuxuu leeyahay daawooyinkaas waxa la qaataa 9 bilood baa la qaataa maalin walba halba xaba ayaa la qaataa oo kaniini ah inkastoo hadda la soo saaray nooc cusub oo taas lagu daaweynayo oo ah in 3 bilood lagaaga daaweeyo infectionka jirkaada ku jira adigoo 2 daawo qaadanayo weekaba hal mar lagu siinayo oo laakiin adoo toos lagu siinayo lagula joogo 3 bilood gudahooda lagaaga daaweynayo 12 week lagaaga daaweynayo wiilkaas ma hirgelin laakiin hadda waa mid soo baxday cusub marka cudurka yahayna dabcan waxaad lagu siinayaa 4 daawo oo aad qaadanaysid maalin walba ugu yaraan 6 bilood ilaa 9 bilood aad qaadanaysid taa cudurka way ka baabi'inaysaa magaciisa marka daawada aad baa maartay wadankan loo daba socda cudurkan liskaga daaweeyaa
taasaa weliba isteedkana wuxuu isteedyada kale qaarkood ooga fiican yahay haddii cudurka qabtid oo aad kaar caafimaad qabin daawo lacag la-aan ayaa lagaaga daaweynaya. arrinka ku saabsan cudurkan markii la rabo in la tijaabiyo inuu qofkan qabo ma wax adago process adag loo maraa see lagu ogaadaa? cudurkan waxaa lagu ogaadaa markii aad timaadeen wadanka Soomaalida halkan waxaa la arkaysaa horta alkaxanba halkan laga durayaa skin test baa la yiraahaa hadday meeshaas ku bararto laba beri marka ka bacda dhakhtarka aad ku noqotid meesha ku bararto waxaad qabtaa waxaad sidaa jeermigi cudurkan keenaya jirkaada ku jira waa lagu sheegayaa haddii markaas raajo lagu saaro feerahaada cudurkii laguma arkaayo oo ma qabtid cudurkii laakiin jeermigii jirkaada ku jira cudur sidee fiyow ayaa tahay markaas waaye marka lagu leeyahay daawadan qaada ka hortaga ah si jeermigii jirkaada looga baabi'iyo haddii taas imaan weyso waxaa imaan kara in aad waqti dambe intuu jirkaada la ceefo oo awoodii jirkaada xoogaa la ceefto jeermigii jirkaada ku jiray uu dib u soo kaco oo markaas cudurkii kugu suubiyo cudurkii markuu kugu suubiyo calaamooyinka lagu arkana raaja lagu saaraya waxaa la arkaya inuu cudurkii sanbabadaada gaaray oo aadna halis u tahay dadka kale inaad cudurkii qaadsiisid oo weliba candhuuftaana lagaa qaadaya candhuufta markii laga helo micnaha waxa qof kastoo aad la hadasho hawadaada ay gaarto jeermigii waa u gudbisay cudurka sidaay markaas dabcan waa lagu daaweynaya isbitaalka lagu dhigaya muddo intii ilaa jeermiga jirka laga dilo oo aad faafin karin cudurka kabacdi gurigaada tegaysaa daawadii lagu sii wadayaa daawadiisa waa daawo waxtar fiican leh effective ah marka 4 daawona qaadanaysaa muddadaasayta cudurka waa ka basgoonaysaa completely waad ka basgoonaysaa waa cudur la daaweyn karo waa cudurada maanta ugu fiican oo daawo loo hayo waxtar ah oo kamid yahay cudurkan TB-ga arrin dhibaato ka haysato dadka Soomaaliyeed ee degan Minnesota iyo guud ahaan adduunka dhanba waa cudurkan sida loo control markii qof familka kamid ah oo qoyska kamid ah guriga kula degan oo inuu cunto kula cuno kula noolaada ay tahay cudurka uu qabo see loo controlaa arrintaas nasib darada waxa waaye wax kaliya oo lagu kontrooli karo waxa waaye qofkii in iska baaraan Soomaalida waxaan ka codsanaynaa in cudurkan iska baaraan qofkii lagu sheegay inuu cudursaday yahay inuu daawadii qaato Soomaali waxay dhibaato ka haysataa waxa qof dhakhtar tagaya waxba cudur baa lagu soo sheegaya daawada qaada la leeyahay magaalada markuu soo noqdo guriga ku soo noqdo qof kale oo aan ibadkiis daawo arag ama isbitaal tagin ama aan iskool tagin oo aqoon u lahayn baa wuxuu leeyahay oo daawada anay tabaarka iyo kaliya baabisa iska tuur kiina waa iska tuuraya taas horta nasiib darro Soomaalida haysata ah oo u baahan inay arrintaas ka waantoobaan haddii dhakhtar tagtid daawo lagu soo qoro waxaan codsanaynaa inaad daawadii sidii loogu talagalay u qaadatid haddii daawadii wax dhibaato adigoo aad dareentadii kugu keentay dhakhtarkaadi kula noqo waxaad tidhaahaa daawadii dhibkaasi waxaasi u keentay wuu kaa bedelayaa daawo kale ku siinaya laakiin ma aha qof suuqa iska jooga aan ebedkiisba laga yaabay inuu iskool xataa gelin inuu daawadii dhakhtar kuu soo qoray adoo buka uu kaa daadiya ma aha taasaytana waa waxa Soomaalida hadda keenay inay daawadii cudurka ku sii bato oo ku sii faafo annagoo maanta Minnesota joogno daawo sax ah la heli karayo lacag la'aan waliba mashruuca hadda madaxda ka tahay caafimaadka oo bariga Afrika campaign badan ku jirtiin masaajidada iyo ummadda kula hadlaysiin in la fahmo cuduradan waxyaabaha ka qabatiin wadanka gudihiisa iyo banaankiisa maxaa kamid ah والله أنا هذا مشروع هذا مسؤول كايو إيست أفريكان هيلث بروجكت اللي يراه وحا كليو أنصوبية وحا أنا ومدي ساس أبرا رجينو ودتك لسه عنا عذر رفر بدن بعد سوماlia دبعتكو هيا وقعد أوجسي بدنايا مركا إنكست أنا هي تختار واجب بقى صار البلشة إذا وحا لوحي baraarujin caafimaad ah oo digniin cudur ah inaan u gudbiyo waajib ay iga saaran marka TV-yadan tagnaa masaajidadan tagaa waxaan tagaa raadiyaalka meel kasta ku kala siin waa kala hadlaa taa waxa igu qasbaya lamiirka igu qas kama aamusi karo bulshadii oo aan u jeedo inay dhibaato kusoo fooleedahay ama ay haysataba inaan ka aamusa xaq ma aha marka taas ay igu qasbaysaa waxaan qabano ugu weyn waa mid ayada ah marka laga soo tago cudurkan TB-da cudurro kale oo badan wadanka ka jiro sida cudurrada galmada la isku gudbiyo kale heerka maadaama wasaaradda caafimaadkana ala shaqaysid gobolkan heerka oo cudurradaas kale Soomaalida ay ka taagan guud ahaan bal maxay tahay
والله وارون عذر كلا أو TB أو بدن باجر أو سوماليا آد أو بدن runtii marka loo hadlo cudurkan cagaarshowga nooca B-ga aad buu Soomaalida ugu badan yahay nooca hepatitis C-ga si aad buu ugu badan yahay cudurka HIV AIDS-ka aad buu Soomaalida hadda ugu badan yahay oo sanadkii 2010 dadkii la baaray Soomaalida lamarka koowaad ka ahayd inta laga helay waxa kaloo ku badan cudurka maartay sonkorta hadda ku badatay diabetic aad ugu badatay dhiigkarka hadda ku badatay culeyska ku batay marka cudurada kale oo galmada lagu kala qaada ayagana saas ugu badan ama jabta ha noqoto ama syphilis ha noqoto ama chlamydia ha noqoto cuduradaas oo dhan Soomaalida hadda ay ku badan yihiin waxaan Soomaalida ka codsanaynaa inay takhaatiirta la xiriiraan oo isbitaalaadkooda tagaan oo daawooyin ka qaataan oo iska baaraan cudurada qaarkood cuduradan galmada lagu kala qaada aad bay Soomaalida ugu badan yihiin Soomaalidana qaarkood way ka xishootaa qaarkoodna way weydiiyaan in takhaatiirta laga baaro mushkilada taala waxa waaye qofaad arkaysaa wuxuu ku leeyahay hepatitis B ha laga baaro isla markaas wuxuu ka xishoonayaa in HIV AIDS laga baarana yiraaho marka HIV AIDS iyo hepatitis B-ga ama hepatitis C-ga isku si waa loo kala qaadaa marka ma aha inaad kana tiraaha laga baaro kana aad ka xishootid ma aha Soomaalida waxa kaloo qosol leh TB-gan hadda ka hadlayna Soomaalida way ka xishoonaysaa inta ay tiraaho TB bal ha laga baaro laakiin waa ku imaanaya wuxuu ku leeyahay cudurka syphilitada ha laga baaro syphilis wuxuu ka mid yahay cudurada galmada lagu kala qaado cudurada kama qabaan laakiin TB oo hawada Soomaalida cudurada ka qabaan marka waa waxyaalaha xoogaa yar u baahan in Soomaaliya hadaan nahay ma aha opposite anigu waxaan isdhahay qof ka xishoonaya inuu cudur hawada lagu kala qaado sheego ma sheegayo inuu cudur galmo lagu kala qaado uu yiraahdo laga baaro marka xagee dhibku ka jira meesha waxyaalaha xoogaa marka aad fiirisid aad la yaabaysid war marka taas waxay ku tusaysaa xoogaa dhaqan ahaan syphilisada Soomaalida ma oga badana in galmada lagu kala qaado waraabowga yiraahan cuduradu yaqaan oo kamid yahay laakiin sida lagu kala qaado habka ama yaqaanaan iyaga badana TB-ga way og yihiin in hawada lagu kala qaado laakiin cudur ahaan bay u yaqaanaan oo dhibku keensanaa iyo sida loo takoori jiray qofka qaba baadiyaha waxaasi farta arkeen oo xoogaa yar ama waxay u arkaan ba cudur ku dhaca dadka ma artay aad u liito masaakiinta ay waxyaalahaas iyo waxa cudur yasid baa ku jirta marka ka xishoonayaan laakiin cuduradan kale ma ay yaqaanaan in lagu kala qaado galmada cagaarshowga B-ga iyo C-ga galmada lagu kala qaadaa HIV-ga waa sida coronavirus waa galmada lagu kala qaadaa syphiliska galmada lagu kala qaadaa حتى جبتدي واحد سومالي ما كعشان واحد جبتي أنا قباء ما إنفكشن عن قباء كلهم واحد سيد مركا عذر هذا كله حشاد وما بهنا واحد كليه لو بهنا واحد إن أسكت أرنت كلا أيضا اللي بعتك تاجنتها وحكم إذا سومالي إن بدن أو كم إذا قفك عذر كقباء سيد وتكوران معناها discrimination بدن يدك عذر هذا قباء ما TB ذا قباء ما HIV ما وحياها ننقباء اللي بدن يكلا كل مان تكورست dadkan maxaa ka dhihi lahayd arintaas wallahi cudurka TB-ga qofka qaba waxa fiican hadii uu qabo cudurkii disease-kii haduu qabo inuu isbitaalka tago oo haduu cudurkii fidinayo isbitaalka lagu karantiilo laga maarmaan waay si uu cudurka u fidinin oo intii muddo oo daawada qaato si jeermigaas jirka looga baabiyo uu bunaanka u soo bixin laakiin HIV AIDS-ka qaba qofka inuu la takooro uma baahna cudurka HIV AIDS-ka laguma kala qaado wada noolaashada iyo guriga la wada cunayo iyo guriga lagu wada nool yahay laguma kala qaado waa cudur galmada lagu kala qaado ama qof qaba dhiiggiisa hadii lagu shaba looga qaado ama cirbada iyo qalab isticmaalo qofkaas iyadoon laga shaqeynin lagu isticmaashay kuwaas marka uma baahna HIV-ga AIDS-ka kale in la كنترول قفك قبا وعلى بهاي إلى سود وعي ولا داوية وما أرتي داود وسنوتيس داولة عن عرب تري إن العذر لكن ولا كرايو مركب تاسنا وحلو بهاي إن على تكورين ذاتك أو مجلسك لكن قفك TB قبا هدي عذر كي وقبا وحلا مارمان إن سبتال كلا جيو مدة لو هايو إلا جرمي أو لقيه هير وسفيدي كرينين أو جدكو جد بكرينين كبعد يقول لي سكوسة نقنا داودة وقاضنا داودة TB أنتي أعذرك لقى داوينا نيرسا كوا إيمان يسجوري أو معلومة بداودة كعنتي هذا كوسينيس وعذراء عاد فاهمني وقت بدن وباهن أنت لو سكول كريم هذا يوم ما سنتي دكتور اسماعيل حلال وقت